أسبوعًا xaafadda Soomaalida ee degdeg ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika Biafra dabcan howlo aad u waaweyn ayaa ka bilaaban doona oo dabcan lagu sugayo ammaanka, nadaafadda iyo waxyaabaha la xiriira. Dabcan dowladda hoose ayaa aad uga howlgeli doonto maadaama Soomaalidu inta badan wadadaas ay aad ugu ciyaareen isla markaana wax sharci ilaalin. Sida maayarka Cape Town uu sheegay, kala sarreynta sharciga ayaa la soo celi doonaa. Baabuurta meelaha la iska dhigdo oo aad u liito dabcan dadka waa lagu xiri doonaa, baabuurtan waa laga qaadi doonaa. Warkan ayaa ka soo baxay kadib markii Jimcihii wada kulmeen Soomaalida ganacsiga ku leh halkaasi iyo kuwa guryaha iyo deegaanka ku ah intaba iyo dowladda hoose dabcan oo ay weheliyaan weliba Metropolis iyo micnaha ciidamo aad u hubeysan ama u xoogganba. Marka dabcan warkan ayaa wuxuu kusoo aadayaa xilli waayadanba Belfil iyo Soomaalidu deegaanada iyo degdeg aad loogu mashquulsanaa dhanka sharciga ah. Marka dabcan inta badan Soomaaliduna laysanne iyo sharciyo inta badan ma wataan ba ayagu wadanaya baabuurta iska beekmaan. Sidaa darteed waa xaalad daraya oo u baahan in laga foojignaado. Soomaali badan ay xabsi ku mutaysan karto magaalada Belfil markaad dhex marayso inta badan waa magaalo aad ciriiri u ah oo wadooyinka ay wada xiran yihiin oo dadka ganacsiga horay ay dabcan u soo baxaan oo alaabta banaanka iska dhigtaan kaasadan dadka ganacsiyada waaweyn leh wadooyinka ay iskaga dhex dejistaan alaabtooda. Tan ayaana ka careysiisay dowladda hoose dabcan oo dhib aad u badan ku qabtay waayadii dambaba. Dadka guryaha iska leh ayaa iyagana loo sheegay in guryahooda hortooda aan waxba la dhigan karin ama waxba lagu gadi karin, taasoo ayadana saameyn weyn ku yeelan doonto.